السلام عليكم أصحابتي soo dhawaada maanta waxaan idin hayaa hab fudud oo aad ilkahaada ku cadeyn kartid oo aad ugu dhigi kartid ilka qurux badan oo dadka ku daawanaya qosolkaada iyo dhoola cadeyntaada ay aad ugu helayaan waxaad soo qaadanaysaa tuun iyo cusbo waxaad kala soo qaadanaysaa weel faaruq ah waxaad kala sidoo kale aad soo qaadanaysaa hal liin xabad liima aad soo qaadanaysaa iyo midi si aad liinta ugu kala jeexatid kadib liintii waxaad u qaybinaysaa laba sidaan oo kale laba ayaad u qaybinaysaa waxaad kala soo qaadanaysaa qaando ama spoon sidaan u naqaano luqadda Englishka kadib liinta dheecaankeedii ama dareeraheedii ayaan qaandada ku shubinaa waayo waxaan u baahanahay hal qaando oo dheecaanka liimada ayaan u baahanahay kadib waxaan ku shubinaa weelka faaruqa ayaan ku shubinaa waxaad kala soo qaadanaysaa huruud aad soo qaadanaysaa oo qaandada marka afar loo qaybiyo qayb kamid ah huruud aad soo qaadanaysaa kadib waxaad ku shubinaysaa ama aad ku daraysaa liintii oo isku qasaysaa markaad isku qastid huruudii iyo liintii waxaad kala soo qaadanaysaa bamaatada ilkaha lagu cadeeyo nuuci guriga aad ka heli kartid kadib waxaad ku shubaysaa qayb yar oo kamid ah oo qaandada ugu yar nooc ugu yar halfkeedo kale oo bamaatada waxaad ku daraysaa liin dhanaantii iyo huruudii kadib waad isku qasaysaa ilaa inta iska dhex galaan ayaad aad isugu qasaysaa markaad sidaan oo kale isugu qastid oo ay isdhex galaan waxaad kala soo qaadanaysaa tunti xabad kamid ah ayaa soo qabanaysaa kadib markaad soo qabatid waxaad soo qaadanaysaa midi waxaad ka fiiqaysaa qolofka kore xubta kore ayaad ka qaadaysaa tunti sidaan oo kale ayaad ugu qaadaysaa markaad saan samaysid oo aad qolofka kore iyo xubta aad ka qaadid waxaa kaloo sidoo kale aad soo qaadanaysaa baashan ii sheeg shabaqan oo kale aad soo qaadanaysaa si aad tuunta ugu jarjartid kadib tuuntii ayaad ku jarjaraysaa oo waxaad ku shubaysaa huruudii iyo liindhanaantii iyo bamaatidii ilkaha lagu cadeeyo aad isku qastay ayaad tuuntii ku kor jarjaraysaa sidaan oo kale ilaa tuuntii gebi ahaan xabad oo dhan ayaad ku wada jarjaraysaa si waxaad ka dhigaysaa batitaq oo kale gabal yar oo kale kadib waxaad soo qaadanaysaa qaandadii waa isku qasaysaa oo aad ay isugu qasaysaa ilaa inta ay iska dhex galaan ayaad isku qasaysaa waxaa kaloo soo qaadanaysaa cusbo oo qaandada markii afar loo qaybiyo qayb kamid ah oo cusbo ayaad ku daraysaa oo quarter of spoon part of the salt ayaad ku shubaysaa qayb kamid ah afar marka loo qaybiyo cusbadii hal qayb kamid markaad ku shubtid kadib waa isku qasaysaa si aad ayaa isugu qasaysaa ilaa inta iska dhex galaan ayaad isku qasaysaa markaad ogaatay inay isku qasameen waxaa kaloo soo qaadanaysaa buraashka ilkaha lagu cadeeyo aad soo qaadanaysaa markaad soo qaadatid kadib wixii aad diyaarisay qayb kamid ah ayaad ku soo qaadaysaa sidaan oo kale kadib waxaad ku cadeynaysaa 2 ilaa 3 daqiiqo ayaad ilkaha ku cadeynaysaa sida ninkan oo kale ayaad ku cadeynaysaa isbuucii 1 ilaa 2 mar kadib waxaad arkaysaa natiijo aad ku farxdo ilka qurux badan oo dadka dhoola cadeyntaada ay ka helaan ayaad arki doontaa insha Allah aad u mahadsantiin muuqaalka la share gareeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh